wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobollada waqooyi inkastoo gobollada koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaaleen talyaaniga. waxaa hogaaminaya dhaqdhaqaaqaas waqooyi ka bilowday allah u naxariistay sayid maxamed cabdulla xasan. halgankaas gumaysidiidka ah waxaa halkaas ka sii waday ururkii SYL ay hogaaminayeen 13 dhalinyaro oo noqday kacdoonkii wada gaaray Soomaali oo dhan. amaan ku baaqayaa in wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland aan dardargelino. waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxog waraysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. waxay dowladdu diyaar u tahay in la faguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Somaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda si wada jir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay. saaka 7 markii la soo toosay ayay yiraahdeen qoladii meesha ka timid annagu dowladda la soo galbeena shir loogu toosay waa la furayaa kaalay way iman waayeen. qoladeedu waa gashay garteedu baa xasatay si wacan oo loo dhageystay fagaarihii ay cidda wuxuu sheegay caalamkana wixii yatana waxa loo baahantahay qoladii may dhoofin markay qoladii ka soo baxday way u tageen qoladii shirka waday iyo safiiradii waxay ku yiraahdeen waxaan u iman shirka waxaan u soo gari weynaan u diidanahay dowladda Kenya Albaan rahay marka aanu arrigeeda ku garbayna shir waxaan leeyahay meeshii kale aad tirahdaan kale intiina soo dowladda diidayno waxaan doonayaa inaan hadalno oo aad hadalkayga dhigtaan diyaar baan u waxay su'aashaan annagu iyaga wada hadli mayno si Turkiga la oran maayo ordo qolkaaga ku murmo. waxaan u baahanahay guddi caalami oo adag oo wax kala gooy karta oo gartayda kala karta aan oranin ordo halka ku sheekaysta sharcigaas tagi mayno hore lagu daalo wada hadal oo sheekaysta. waxay ahaayeen kuwii awoodoodu iyo halabuurkooda u isticmaalay baahinta iyo faafinta dareenka wadaniyada Soomaali oo qura, Soomaali oo qable, Soomaali oo ku nool hal dawlad iyo hal calan. waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyada abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobollada waqooyi. abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jacayl iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda. waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyey hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobonnimadoonka la ahaa. nasiib darro duruufahaas Soomaali oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan bacdamaa aan kala qaybsanaanay. haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobonnimadoonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno. dowladda Sacuudiga oo in badan wada qoray oo in badan la hadlay waxay soo dirtay wada qoranaysa xoolaha berbera ka dhoofaya waxa lagu fasax qaadaya xamoo. waxaan ka bogaadinayaa in sheegaya inay habeen hore yimaadeen ganacsadii xoolaha Soomaaliland 3 maxjar iyo intii xoolaha loo fariisay oo aad iyo aad u mahadnaqaystaan ka qaateen oo ay yiraahdeen haddaan 3 maxjar nahay iyo dadkii xoolaha loo fariisay waa mushaharo waxaanu go'aansanay wax kasta haday ka dhacayaan warqad xal laga soo qoray ilaa xoolaha Soomaaliland ka soo aad iyo aad u mahadnaqayaa
عبد القادر السودان كنا عاون عبد القادر كان قرني عاود سؤال تابع بريها صار قرنها عبد القادر هل كان دكتور رجلي فيصلون كوك فديا سبتنا توبانكا عيد كان ولا شغال بايو حسبينا مش انا مدحتويدا إن شاء الله waxaan jira shirka aslan ku kala ka duwanaado oo shicibku wuxuu inaga naawilay aanu soo saaro dadaalka xamidiga aad iyo aad baan jeclahay ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto waxaan dhalinyarada leeyahay ayaga iska leh mustaqbalka waa inay bilaabaan dood cilmiyeedyo lagu falanqeynayo mustaqbalka Soomaaliya ee qarnigan 21aadka ah ee aan ku jirno iyo sidii aan uga habsaanay caalamka intiisa kale maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa sharaftii qiimihii qabkii dadkii gobollada waqooyi ee calankii ka taagay beertii xorriyadda ee Hargeysa iyo dawladdii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee u keeneen inay noqoto ummadda jirta oo caalamka aanu ku leenahay sharaf waxaan u hambalyeeynaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadaalkii iyo halkankii la soo maray ma doonayno inuu meel dhexe ku lumo dad badan ayaa u dhintay dad badan ayaa u lumiyay hantidoodii dad badan yaa mustaqbalkoodii ku lumiyey inay Soomaaliya ay midowdo maanta taariikhda noqonaysa waxa qof walba oo Soomaaliyeed ha joogo waqooyi ama ha joogo koonfur ay ka qabtaan midnimada iyo wadajirka ummadeenna waxaan hubaa in kala qaybsanaan inaysan siinayn sharaf iyo dawladnimo iyo karaamo iyo horumar inaysan siinayn waxa kaliya aan ku gaari karno waxay tahay inaan ka gudubno qabiilka iyo qabyaaladda aan u shaqeeyno qarannimo aan u shaqeeyno taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo insha Allah waxaan sugeynaa wiigi xorriyadda oo nagu soo aadan bisha July 1 oo ah isu tagii koonfur iyo waqooyi